Bismillahirrahmanirrahiim. Marka hore waxay mahad u sugnaatay Allah subxaanahu wa tacaala. Marka labaadna waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin waa wada salaamantihiin waana mahadsantihiin. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuca kaadi baxsadka, qaar ahaan marka kaadi baxsadka ay dareemaan dumarka. Waa codsi igaaga imaaday gabdho ku xiran oo page-ka iyo dumar ku xiran oo iga codsaday in si gaar ah aan ugu soo hadlo mowduuca kaadi baxsadka ee ku dhaca dumarka. Markii hore waxaa jirtay cashar aan soo diyaariyay kaasoo aan ugu hadlayay si guud ahaan mowduuca kaadi baxsadka ragga iyo dumarka. Maanta insha Allah waxaan dul istaagaynaa qaybta gaar ah ee iga codsadeen inaan soo diyaariyo oo kaadi baxsadka dumarka. Kaadi baxsadka dumarka marka laga hadlayo laba qaybood oo ugu badan. Marka hore stress incontinence marxalad loo yaqaano oo ay u badan yihiin dumarka qaybihiisa kala duwan. Stress incontinence marka laga hadlayo dabcan waxa waaye qofka waxaa ka mid ah hooyada uurka leh oo muddooyinka badan soo dhashay oo multiparity-ga ah inay dareento waxa loo yaqaano kaadi baxsad. Sidoo kale hooyada menopause-ka ah ama dhalmo goysay ama dabcan aan waqti dambe oo dhalmo aysan u harin ayadana waxay dareentaa marxaladda loo yaqaano stress incontinence. Stress incontinence waxaa kaloo dareemo maamooyinka da'dooda aadka konton ku dhaaftay iyo gabdhaha obesity-ga cayilan iyo dadka alcoholism-ka ama drug abuse-ka ah. Dhammaan gruubyadaas aan ka soo hadalnay waxaa loo yaqaanaa kaadi baxsadka ku dhaco stress incontinence. Maxaa sababa marka? Stress incontinence markii laga hadlayo waxaa sababo murqaha isku hayo qaybaha kaadi mareennada iyo qaybaha taranka ayaa waxay noqonayaan weakening, kuwa shaqadoodu aad u daciifto, aanan kala bax xoog badan sameynin ama isku imaatin aan sameyni karin. Waxaa ku dhacaya dabcan elasticity-gooda ama cufnaantii murqaha ayaa waxay noqonayaan kuwa aad u daciifsan, shaqo badanna aan qaban karin. Wuxuu ku imaan karaa stress incontinence-ga hooyada markii abdominal pressure badan uu jiro. Tusaale ahaan haddii qufac badan hooyada ay sameyso waxaa jiraya marka pressure ka dhalanayo uurku jirta kaasoo cadaadis sii saaraya marka qaybii hoose hadda aan ka hadlayna. Meeshaasna hooyadu ma dareemi karto waqtiga ay kaadida ay ka baxsatay. Sidoo kale qufac markuu joogto yahay had iyo jeer waa lagu arkaa hooyooyinka kaadida inay ka baxsato, gabdhaha inay ka baxsato. Waxaa kaloo jiro qofka markuu lifting uu qaadayo miisaan culus ama miisaanka dabcan oo hawsha guriga laga hayo qaybta dhaqmada dhulka oo kale markii la dhaqayo maamooyinka qaar waxay dareemaan inay kaadida ka baxsanayso. ayadana sidoo kale waxa ay ka mid tahay groupka stress incontinence. Dabcan waxaa jiro marka qayb kale oo loo yaqaano urge incontinence mararka qaarkood lagu arko hooyooyinka qaar. Urge incontinence-ga ayada waa continence ku imaaday hooyada si dhaqso ah inay kaadida ugu baxsato ayadoo is musqusha aadin. Degdeg u qabanaysaa dabcan ma gaarsiin karto, degdeg ay musqusha ku aado intay u sii socotana kaadida way ka baxsanay. Medical conditions ayaa jira markaas oo kale sida loo balinayo sida diabetes cudurrada sokorta cudurka sokorta ayaa waxaa ka mid ah inuu keeno qofka kaadi degdeg ay ka baxsato intay musqusha u socoto. Waxaa kaloo ka mid ah central nervous system nerviyaasha cudurrada ku dhaco ayagana qayb libaax ay ka qaataan in hooyooyinka kaadida ay ka baxsato. Groupkan oo ay ka mid tahay urge incontinence. Sidoo kale waxaa ka mid ah urge incontinence si degdeg maamada inay kaadida ugu baxsato ama gabdhaha chronic urinary tract infection cudurrada infekshanada ee kaadi mareennada ku dhaco, kaadi heesta, tubooyinka iyo kelyaha. Cudurradaas waxaa had iyo jeer u nugul leh gabdhaha. Infection-ki markuu meesha ku daaho waxay noqonaysaa in aysan dabcan kaadida ay shicin karin si degdeg oo feeling ah oo ay dareemayso oo joogto ah in musqusha ay u aadayso ka bacdina ay kaadida eenayso. Intaas ka hor waxaaba dhacaysa in kaadida ay ka baxsanayso. marka laga hadlayo urge incontinence-ga iyo marka laga hadlayo stress-ka waa laba marxaladood oo ku sababi karo hooyada in kaadideedu mar walba ay baxsato. Urge incontinence-ga asaga wuxuu ku imaadaa in muscles-kii dabcan oo ku shaqal lahay kaadi mareennada iyo dabcan kaadi heesta inay isku imaadaan ee cadaadis ay saaraan kaadida inay banaanka u baxdo ayaa waxay tahay shaqadooda kuwa had iyo jeer aad ay u badan tahay. Mar walba waxa waaye contraction ayuu sameynaa urge incontinence-ga marka laga hadlayo. Dabcan taasina waxay keenaysaa marka qofka mar walba inay kaadida ay qabato
uu musqushi u aado intuusan musqushi aadin inuu dabcan meeshii uu kaadada ay ugu baxsato urge incontinency sidaasaa loo dhahay muruqaha kaadi haysta isku hayo iyo kaadi mareenada dhammaantood ayaa waxay yihiin kuwa over contraction ah shaqadoodu ay badan tahay muscleska ay aad u shaqeynayaan halka midda kale stresskana uu yahay kuwa elasticitygooda iyo contractionkooda uu yar yahay yacni dabcan waxaan ka wadaa inuu aad u yar yahay shaqadoodii iyo dabcan inay kaadidii ay controlaan qofka abdominal pressure hadduu jiro oo cadaadis yar xagga uurku jirta uu ka imaado ama qufac yar uu dareemo hooyada kaadida waa ka imaanaya halka midka kalena uu yahay contractionkiisu inuu badan yahay dabcan labadaas qaybood ayaa u badan maamooyinka inuu ku dhaco urine incontinency hooyooyinka waxaa loo baahan yahay wacyigelin badan in loo sameeyo in laga wacyigeliyo dabcan waxyaabahan inay yihiin wax fudud la daaweyni karo waxay sameynayaan subaxii hore oo kale giggle exercise waxa la dhahay health education loo sameeyo giggle exercise waxa waa qeybahan hoose balviga ayuu dabcan contractionka iyo balance muscles ayuu isku dheelitiraa waa almeenta subaxii la sameynayo oo qeybahan hoose oo dhan oo kaadi mareenada muruqaha ku jiro dhan qusaysa giggle exercise ayaa loo yaqaana waxay kaloo sameynayaan marka lifestyle-kooda ayaa wax ka bedelaya hadday cunooyin badan ay isticmaali jireen waa in la yareeyaa wax khafiif la cunaa biyo badan haddii la cabi jiro oo kale waa in waqtiyada shaqada biyaha la iska yareeyaa habeenkiina la yareeyaa kabacdi ayaa daawada wax tari kartaa waxaan kaloo soo jeedin lahay daawooyinka dhakhtarku idin qoro in si toos loo qaato marxaladahan dabcan way wada hagaagayaan waxayna noqonayaan kuwa ku guuleysatiin dhammaan codsigiina waxaa idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu